horta inaad see isu diyaarisa ma isdiyaarisan ma isku diyaarisan inaad noqotid xaas wanaagsan haddaa isku diyaarisay xaas wanaagsan ma ka fiirsatay qofka aad nolosha la wadaagaysid muxuu noqonayaa ma ahan adiga bas inaad isdhistid anigii waa isdiyaarshay waxaan isku diyaarshay xaas wanaagsan inaan noqdo laakiin yaa la qaybsanayaa nolosha hadduu noqdo mid aan waxbaba ka aqoonba nolosha anigu waan aaminsanahay see la iga rabaa inaan nolosha wax uga bara asaga waayo laba qof oo kasta oo isku timaada ma ahan micnaheeda inay laba qof oo kasta wax kasta ay qofka kale ka raba inuu ka helay laakiin wixii haddii aniga la iga helay asagii ay ka maqan yihiin see u bari karaa inuu asagii waxa aan ka raba isiiyo waxay ka mid tahay xaas wanaagsan sababaha ku noqonaysid ma ahan xaas wanaagsan markaa ku leeyahay keliya inaad tiraadid yacni ninkii jeclow waa jeclaanaysaa laakiin qaabkee u jeclaanaya qaabkee uga keensanaya anigana jacaylku asaga aan ka mudnaa saan ogsoonahay allah subxaana wa tacaala wuxuu isu abuuray ilaahay wax kasta markuu abuurayay wuxuu ka dhigay lab iyo dhadig ilaahay markuu aadan abuuray wuxuu ogaaday inuusan aadan noolaan karin xaawo la'aanteed markii xaawiyi aadan adduunka la keenay oo allah subxaana wa tacaala wax kasta uu bilaabay inuu ilaahay keeno adduunka wax kasta ilaahay uu adduunka keena lamaanihiisii baa la socda that means ma ahan ragguna inay noolaan karaan gabdhaha keligood gabdhihiina ma noolaan karaan raggi la'aantood waa la isu baahan yahay allah subxana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wuxuu idin sheegay allah subxaana wa tacaala markii yani markuu noo midna sheeganayo ilaah oo intuu waxyaabo kastana tuso wuxuu ku leeyahay bal fiiri calaamad miyaysan idin ahayn inaan isu abuurnay ragga iyo dumarkii maxaad isugu abuurtay allah subxaana wa tacaala ma isweydiisa allah subxana wa tacaala wuxuu iskugu abuuray ragga iyo dumarka litaskunuu ilayha inay isku xasilaan inay isku degaan kadibna galgacayl iyo naxariis inay dhexdooda ilaahay uu soo dhex dhigo saan ogsoonahay annaga soomaali markaan nahay culturally guurka waan guursanaa laakiin micnihiisa muggiisa weyn ma fahansaneen guri kasta waa dhisan yahay laakiin gudihii buu ka ololayaa waxaad arkaysaa gabar qurux badan iyo wiil qurux badan oo markay aragta aad isleedahay wallaahi way isu qalmaan labadan maasha allah laakiin markii aad la fariisatay daqiiqad ka mid ah markaad aragtid dhibka ayada ay sheeganayso ama dhibka asaga uu sheeganayo guurkii dhan baad nacaysaa marka guurkeena maxaa naga haleeyay miis weydiina 25 sano dalkeena Soomaaliya uu burbursan yahay ma dhisna sababta koowaad uu dhismila ayaa waxa kamid ah faamiladii baan dhisnayn qabiil intaadan fiirin ha aadan qabiil ha aadin reer hebel baa wax sameeyay laakiin waa inaad tiraahdaa gurigii horta aan ka soo baxay aniga ahaantay shakhsinimadayda gurigii aan ka soo barbaaray guri see abu ahaa gurigii aad ka soo barbaartay oo ka soo baxday ganjeelka iridka aad ka soo istaagtay qaabkii uu ahaa baad banaanka iyo bulshada kula dhaqmaysaa hadduu ahaa guri violence oo markasta dhibaato ka dhex taagan tahay oo markasta muran ka dhex taagan yahay oo hooyada iyo aabihi markasta is haystaan oo familku isna hayn family isku duuban banaanka markaad timaado ma taqaan dadka sida loola dhaqmo waayo background-kaaga wax ka khaldan yihiin marka waxaan rabnaa inaan share gareeno maxaa ninka looga baahan yahay maxaa sanaagta looga baahan yahay gabadha looga baahan yahay afwan ninka iyo gabadhiisa xaaska waxaa looga baahan yahay kow qofba qofka kale saan idin sheegay qofba qofka kale inuu priority-ga siiyo marka ninkaaga priority-ga siisid yani qofba qofka kale inuu ka dhigo qofkiisa koowaad haddii aad ninkaaga muhiimadda siisid waxaad ogaataa gabar yahay adigana inuu muhiimadda ku siinayo laakiin saan ogsoonahay muhiimadda waxaan siinaa asxaabta xaajigii baa jooga gurigii buu jiifaa ma kala jecelin banaankan gabdha la fadhiyaa xaafad heblaayaan qaraabo kiilo u aaday asxaab haddii la ii yimaado asagii korkiisa ma kala jecel albaabka usoo riix baan leeyahay kow waa inaad asaga muhiimadda siisaa priority-ga koowaad markaad asagii muhiimadda siisid kadib adigana muxuu ku siinayaa muhiimaddiisa سأنا أقصدنا الله سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يري الدنيا متاع
فإن وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا ذو راحة لكن هي راحة أتها waxa ugu qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysto waa qofkii hela haweeney wanaagsan. waa meesha hada Englishka aan ka dhahno Englishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of women. nin kasta oo guuleysta waxa ka dambaysa gabar. that means ninkaaga hadaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabihi carruurtaada. nin islaameed maadan soo saarin. guriga hooyada markaad joogtay wax kasta waa helaysa. maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid? maxaa u soo raasatay inaad guursatid? haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursatay gabdhayo? secondly guurka aan guursanno annaga Soomaali ahaanta wuxuu ku bees garaysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo. هذا أنتي هذا أدين ويديو أنا لو محق جورسته جوابتك كواذا أسينا سوحتها أولادنا هلا isn't it ولي ما إذا كنت تجاوركوا فكرتوا أتر نرال في عم بعربا نرال ونكسن بعربا نرش ونكسن سوي أكتر ما بنقانه أولاد إلهي باكين إمتى أنت إسجورسته أولادنا سودالين ألف وألف كمانان ما أنا هدف كاجي إنها تكون حرتي مرة والبعد جورسنا يصير كو برجع هواي ده مركب بحيسد ما أنا نك أنا أورع ذكري أولاد بهربا أولاد إلهي باكوسين كرا أثار الزاقة أولاد إلهي باكوسين كرا لكن وأين ترى هذا مركب جورسنا يو وحقوق جورسنا يا نلال في عن قف وناكسن إنا هلو واي قفنا قف كلا جرب كيسة كمان مرمو ويلاش كمان مارنو قبلها ويلاش أنا كمان مارمان لكن واحد أنا بريها واحد سعود عارين لده ويلاش الصوماليات رومانتيك ما أهن واحد أنا فيريا ما حد هذا ويلاش الصوماليات رومانتيك ما أهن قبض إلا قبي ما أهن قبلها يركض صوك عي كلمة سيدة دهيان قبض إلا قبي محل هذا والله بالله إني ما كصومالي نول ماله والإسكال نولنا أولاد أصدرتوا ذم كل نولنا isn't it معناه هذا ما أهن قبلها هذا صوك عي كذي إنا كهذا ورتنا قبوا ورئيسته محي كل هذا والله إلهي بأولاد يقصي ما أهنه أولاد أصدرتي سأولاد جوجاي ما بلا جوجين بقى لكن ويلاش محي أدا الله صار مين سوي ديسين have you read yourself هذيك ما آخر سهرته ويلاش الصومالي الرومانتيك يا كذي كره إذا كذي كره رجع عدانك على ترتمن علينا نرش بحكي قنان ويفهنسيهن فين أوكي separately as أهان أنا كصومالي هم وحنا كوكل دوّن هاي كوريتان كانوا هرترون أهان تمرك لجاه الله مرك لكورينا أيه ويلاش إيه قبلها لو ما كنا سعد على ده بعد بنات قبل يا وحي قال يعني قف مر والبا وتاجن غيرك هنشديسه نينك صومالي هرت رير هنشديس waxba kama yaqaan ko marka guursanaysid taa ogo wuxuu yaqaanaa kaliya in la dhaho bariiska waa dhamaade baastadan way dhamaato secondly laakiin mid aan ku eedeena maxay taa wiilasha Soomaaliyeed naxariisna ma siiyaan wiilasha Soomaaliyeed hadal fiican nagula ma hadlaan wiilasha Soomaaliyeed jacaylna ma siiyaan laakiin wiilasha Soomaaliyeed anaga jacaylka daanasan xagee buu jacaylku uga imaanayaa bay kulata markii hooyadii soo barbaarisay cadaalad darro ay ku soo barbaarisay adigii uu ku qabay markuu ku yimid oo aad albaabka inta u soo riixday aad gabdha banaanka sheeko ula fariisatay xagee uga imaanaysaa romantic inuu noqdo wiil Soomaaliyeed وأين البريورتي أساق سيسا مركو هره سوى أساقنا بريورتي كوسيو تنلباد أمر والبعانا سمين صومالي هدانا وحيتهاي نينك أجا وحي وجعليها ما لجعشها ما انترس كرسا وحا أساقنا انترس كريو absolutely no نينك صوماليات سابو نينك صوماليات interestigaga interestigiisa markaas siisid wuxuu ku siinayaa adigana interest for example tusaale waxay jecel yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kale waxa laga yaabaa ninka ku qaba inuu jecel yahay inuu intuu habeenkii soo baxo markuu casheeyo soo baxo oo banaanka fadhiga soo fariisto oo feeling geysto ama ciyaar geysto ama some habits dabeecadaha qaar rag baa leh laakiin maxaa sameynaa
واسبوسنا أفكا تاجينا قل كتاجينا حنلاقي ها نك ما تنسوي عشان السميناي والله بلا وحني ذي ما بوها يا مكان وحلاقيها بقى سجى إنترستيجس إنها هلكا قشي هرت جار ما قف كسوج جيدا كرتا وح أوربا كستمر كأسميس وحو جعلي أكو تاجر صو أكفر يسو مركو تي في قداره وعشت وصوبح وحلاقي من ده وحركت السويس إنه شاكيو إنه كل هذا صو أكفر يسو وحو داوني يلا داو بل هذا حينها كعين ترتيب وحتى هذا وحن مية جعلاتنا داوتي هذا مكلون أكسنتها حلاقيها بهبين نض أهرية إنه سكول الكوج جوابه لكني مركز هبين بهبين كحجة هذا البنت أتمنى أترادي مو حدا ونسا برنامج كاجي مالك الدم وحكوف الضانايا إن تقف كسو جلسة برنامج ما دام أديك أنا الربين سيدو كلاته نينك على مر والبا أبرشيشن مقصود بس يعني ما أمه هاد عدسة ولي نينك ما أمه هاد عدسة ما تري لا أنت هدانا كهل اللي هين أديك وما لين ما يمانتهر كأنا جاري لها هذا أمها سنتها ولي عم يستري موسى وحير اسمه قلنا ان ما استري ولي قال يعني ما هذا علسه ما انت هيركا جارسيس انت اساكو سو جارسيه سوما ان وحير hooyada gabadha soo gaarsiisay ali ayada stiil shiziyaag hooyada markay leedahay waxay ka hadashay hooyadeed laakiin ayada nafteeda caruurteeda wili kama hadleen hooyada way ku soo gaarsiisay saxiix maanta meesha Soomaali markii la dhaho 98 even 100% xitaa hadaan awoodin inaan dhaho 98 ama 99 waxaana soo saaray waa hooyooyin Soomaaliyeed waxa maanta garabkeena istaagay waa hooyooyin ma aan aabayaashan in laga waayay wixii looga baahnaa laakiin waqti bay la kulmay aabayaashan waxay awood u kari waayeen waxa jirta caafimaadka markii la baranayo xanuun la dhaho PTSD in badan waa laga hadlaa filaya waadna baran doontaan insha Allah PTSD du waa xanuun la dhaho post traumatic stress disorder waxa keena xanuunkaas qofka markuu violence dagaal markuu la kulmo qalbiga jabaya qalbiga markuu jabo himadii hadafka uu lahaa oo dhan waa burburaya hadafkii markuu burburo mas'uuliyadii iyo wixii laga baahnaa wuu ilaawaya even including himself naftiisa marka lagu daro aabayaasha Soomaaliyeed dagaal la kulmeen dib bay la kulmeen rafaad bay la kulmeen markay dawladda dhisneed ma jirin aaba saaqid aha ama qayr mas'uul aha laakiin dalkii iyo dagaalkii markuu burburay kadib aaba kasta muxuu noqday iska qayr mas'uul maxaa ku kalifay ma ahan ayaga inay xumaadeen aabayaashii waqti baa la kulmay alxamdulillah hooyooyin Soomaaliyeed waxaan filayaa run ahaantii وأن إنما أنا أمها دعيلين كرين والله العظيم هو يوينك الصوماليين وحنا نقدين the heroes of the world جالسين تأدونك وايو ضلشن اللي بعتن سنة بربرسن وما أنت ولي كنت لجر إنه اسمه وبتصوصاره وحنا أراس كجر معنا والبا فرحات كجره وحكينا يا هو يوينك الصوماليين بمورال الهان نورسي إن هو يدي الصوماليين مركي كمان صبيحي كرت واجب كأها إن عنو جادي سو كورسو at the same time إن عنو جتربية دي سئل على سو marka run ahaantii single maada iyo single father nolosha midna uma wanaagsana waxa garan karo qofkii ku soo koray kalinimo inay hooyada kaliya ku korsato ma helisid jacaylka waalid maad u baahnayd inuu aabba kaliya ku korsadana sidoo kale ma helisid dadku waxay u qabaan hadii hooyada ala nooshay aabba ina ka maarantid laakiin ogaada aabba wuxuu leeyahay priority gooni oo Ilaahay ugu talagalay jacayl gooni uu leeyahay qofka maanta ku soo koray family buuxa hooyadiis aabihiis walaalihiis uu ka nasiib badan yahay qofka maanta hooyo kaliya korsatay ونا كفر حد بدنيا even moral أهان وكفر حد بدنيا وكأكتيف سيا وكوحجات بدنيا مركو أبياش لجمع مارمو هويو يمكن لجمع مارمو هوينك Soomaaliyeed ayaga nokriya alxamdulillah appreciation marka ma usoo bisan nolosha aad u jeedinaada ka maarmin ninkaaga ma u maad celisay mar walba aad kaliga tahay ama uu ku hor fadhiyo hadiyad ma uga dhigto inaad soo xasuusisid marka aad kaliga ahayd nolosha aad ku noolayd maanta nolosha iyo farxadda aad haysay ma uga maad celisay ma tiri aadan kaaga maad celinaya farxadda ma anta ma bahelan run ahaantii markaad kelmadda ku tiraad ma ahan ina iska dhahaysid maxay u taraysaa asag ma isweydiis waxay u taraysaa dhiirigelin wuxuu mar walba ku haminaya inuu san ka fogaan qofkaas waayo wuxuu isu arkay inuu yahay qof wax bedeli kara wuxuu isu arkay inuu yahay qof farxad siin kara laakiin markaan niyad jabino oo iridka markay ka soo galaan ba aan
muran iyo dagaal iyo qaylo aan kala hor istaagno aabaniyad ma yeelanayo xaajigi gurigu ka laabanaya nolol kaluna iska raasna asagna noloshu uu ka dhacay adigna waa ka dhacaysa la mushkil faa'iido dhan marka idinku ma jirto marka say asagna u badbaadin kartaa adigna isu badbaadin kartaa appreciation waa inaa u suubisa u mahad celi ninkaaga xitaa wax yar xitaa haduusa kuu samaynin sometimes waxa laga yaaba markaad tiraahdo wallaahi maanta saas baad ii samaysay ma ilaaway waxa ii samaysay wuxuu ku leeyahay waxba kuma samayne adiga muhiimadaadi maahan inuu wax kuu sameeyo ogow ya muhiimadaadu waa in asaga dhiiri gelisaa inuu wax kuu sameeyo brito not now romantic surprise ma diyaarina weligan waxaa idin weydiinayaa laakiin su-aal waana su-aasha keliya oo ay wareerisa aniga su-aashaas waxay tahay waay loo dhahaa soomaalida ma taqaana romantic maxaa anaga adduunka naga reebay weligiin ma isweydiisan su-aalahaas dhaqan good exactly haddaba ogaada hooyadan maanta haddaa weydiino dhano hooyadee baa ugu sokaysa hadha hooyo aabbahay farxad ma ku siiye taar iyo maqribku intuu ka dhacay way ammaanaysaa hooyo dhahaysa kuma korin dhaqan romantiga ma jirto laakiin romantigi muxuu yahay romantiga soomaalida waxay u fahantay ubax la isu keeno jibsi la isu gado daarizid sabrayska nolosha ninkaaga aasisay ma ogtahay naftaada kow inay ka tahay nolosha ninkaaga aasisay naftaada kow inay ka tahay ma ogtahay romantiga horta aa raadinaysa taas kow ma ogtahay naftaada haddaad ninkaaga siisid waa romantic surprise waayo kumuu seexan kumana u soo tusin inuu adiga ku helo laakiin calaf kadib maxaad u fududaysaa ool jaranjarooyinka uu kuu soo mari lahaa baa u fududaysa soo ma romantic surprise waxay saacidinaysaa labada qof jacaylka iyo kalsoonida ka dhaxeeya inay isu siyaadaan taada kaleeto understandinga ninkaaga idinka dhaxeeya adiga iyo ninkaaga may hashidin gabdhaha codsaday understanding ninkaaga ma fahantaa asagase ma ku fahmaa ma ahan fahanka ninka aan ka hadlaayo inay tahay cuntada uu u baahan yahay uu markuu soo gala aad leedahay shaqadii buu ka yimid waxaweyaan cuntadii hala siiyo ma fahantaa ninkaaga wuxuu jecel yahay ma fahantaa ninkaaga wuxuu necab yahay ma ku fahmaase asaga hadduusa ku fahmin see u tusi kartaa inuu ku fahmo waa inaa ogaataan horta wax walba adiga markaa bilowdid buu asagana ku dhaqmayaa tusaale waxaa idin ah run ahaantii dumarku waa maskax waxaa ku jirta ilaahay xalkeeda ogyahay dumarku dadku waa yasaan raggu waxaa laga yaabaa dumarku inay yasaan oo ay dhahaan gabar baa tahay wax saa u sii weyn meesha kuma haysid laakiin maskaxda idinku jirta wallaahi alcadiim nagu jirta waa ku maamuli karnaa adduunka maanta haddii naloo dhiibo waqti waxaa jirta rasuulka sal alla alay wasalam uu asxaabtiisa bayca la gelayay quraysh oo yahuud ahayd quraysh waxay rasuulka condition shuruud kaga dhigtay calayhi salaatu wasalaam يعني حجك سند يعني سند بس واحد جنيسان سند بس واحد جنيسان يعني بيع عادي بشروط ألاقي كحرتها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو يمد وحي بقى يمد حكيري أمر ضدك على إنه حيرتان رسول الله الله حيرته رسولك من برك يوفوله مركز وحده هاي أصحابتك كل جن هلا حيرته وين حناقين أصحابتي رسول الله وأنت قال هذا أمر كود ما فلينه واحد كستدعى ما يلين رسولك أسوي حناقصن بقصة لابتهم السلامة ووجهه جدودين هاي عبرسين هاي بحيث رمحاق وقول على رسول الله بحيث أصحاب تيدي بقى ما أنت هذا الآن إري جديد أنت قلت جاي بقى إري حيرته مكاسح ما حيرنينه مكاسح رسول الله حناقنه تبناك وبحدت ونك على كل حير جرو ويرتد حيرة رسولك عليه الصلاة والسلام توبة حيبه ونك ويرنجر وحيرتي مركي أركان رسولك من جد اسكو بلعبه كل قد من جد بيقول أردن حتى قارب أساس رسرة حاب بوينت قاوله جيدا هرت واحد قفك كرب تدبرك هرا أذيك رسولك ونبر عليه الصلاة والسلام أذيك وأنا اسكبلو ذا تس marka tusil laazim uu ka iimaanaya qofkaas war xataa nin kasta oo maanta nagu jiro oo aan waxba fahansanin oo nolosh wax ka aqoon oo dhaga xiran oo markii hore guriga hooyadiis amiirka ka ahaa gurigan markuu yimidna isu qabo inuu wali amiirka yahay adaa bedeli kara simple way
caruurtaada aabba fiican waa u samayn kartaa haddaa adigu ugu talagashay inaa u samaysid marka ma fahamtay ninkaaga waxa uu rabo muxuu jecel yahay in loo sameeyo muxuusa jeclayn ragga qaar baa markay yimaadaan oo shaqada ka yimaadaan waxaysa jeclayn baa layidhi inay hadlaan asalaamu calaykum haye caruurta seeyihiin wuu galayaa musqushu wuu qubaysanayaa cashaduu cunayaa direct go to the bed sariirtu turusu aadaya waxaa laga yaabaa ninkaas inuusan jeclaynba in lala hadlo dumarka qaar gabdhaha qaar aa sheekaysano waxaan ku idhi gabar baa bari ii sheegtay waxay tihi wallaahi ninkayga waan jeclahay bay tihi aad baan u jeclaha haye asagana aad buu ii jecel yahay weliba waxaan hubaa bay tihi 99% inuu ii jecel yahay waan farxay waxaan isiri maasha allah maanta waxaa heshaan kuri qofka keliya nolosha kuu sixi lahaaba waxaan ku idhi maxaa ku kasbatay abaaya ninkaaga see u kasbatay saa u sugaayey ubax baa u keena iyo waraaq baa u qoro waxay iigu jawaabtay ninkayga waxaan isku dayaa 100% inaan fahmo waxa uu rabo 100% waxa uu rabo xaaladda uu taagan yahay waa isku dayaa bay tiri inaan fahmo suu asaga ii fahmo wuuna i fahmay bay tiri tusaalahaas ii soo qaatay waxay tiri markuu soo galo ninkayga waxaa idhi waa sheekaysanay marka waxay tiri markuu soo galo cashaan siiyaa haye xabiibi saa tahay ma fiican tahay fiican waan cashaynaa shib sariirtiisuu aadaa faamiladiisa ama asxaabtiisa waxa uu maanta maalinkaas ka dhexeeyay arrinta buu la hadlaa waxaa laga yaabaa inuu iska seexdo bay tiri yacni inuusa aniga ii sheekeen baan ka wadaa ujeedadeeda bointigayga haye marka waxay tiri waa arkiba tiri dabeecadiisa inaysaan tahay wuu jecel yahay soo maaha ma ka qasin bay tiri markuu seexdo anigana geestayda kala markinta u tuurtaa waaga markuu barya nabad haye markaasa wixii nolol idinka dhexaysa waa meesheeda waxaan ku idhi oo fiiri nin maanta dhan iga maqnaa baa idhi oo maanta dhan shaqo ku maqnaa markuu hadda yimi hadduu barkiinta xagga u jeestay maxaa anigu waaba qaylinayaa ku waxaan leeyahay waraa adab dirnaa ma hadashid waa saa jecelnaa soo maha laakiin maxay tiri no way bay tiri ninkaaga isku day inaa fahantid haddaa fahantid wuxuu jecel yahay adigana markaas wuxuu kaa dhigayaa periodta qofka koowaada uu fahmo mar walba taada kale ninkaaga xooji mar walba garabkiisa waxaa u taagan tahay inaad mar walba qof ka soo saartid ninkaaga wuxuu noqonayaa haddaad qof ka soo saartid geesigii birito maskaxiyan xataa wuu u dhismayaa ninkaaga xitaa maskaxiyan haddaa mar walba see u soo saari kartaa haddaad u sheegtid waxyaabaha uu ku fiican yahay ninkaaga meel kasta uu ninkaaga ku fiican yahay u sheeg horta ma ogtahay waxaa ku fiican tahay saas horta ma ogtahay kan iyo kan baa ku fiican tahay deeqsi baa taha waxaan kugu jecla daacad baa taha waxaan ku jecla nin run badan baa taha waxaan kugu jecla nin kalsoonida aad iigu kalsoon baa taha waxaan kugu jecla wallahi aabba fiican baa taha weligii aabba kula mida ma arag weligii nin kula mida ma arag uma leen may gabar aniga ay noloshan inay haysato you see asaga markaas waxay u noqonaysaa strength yani way u ziyaadinaysaa quwaddii ku jirta xataa way ziyaadaysaa wuxuu isleeyahay waa run wallahi nin kaa fiican maba jiro adduunka wuxuu isleeyahay aabba kaa fiican maba jiro adduunka muusey kaa fiican adduunka maba la helaba soo ma yani ninkaaga mar walba anaga waxaan ka bilownaa rasuulka alayhi salaam wuxuu yidhi dumarka waxaa naarta u badiyey buu oo u badiyey buu yidhi si kasta oo wanaag aad ugu samaysid maalinkaa khalad ka gashid bay wanaagii dhan hilmaamaysaa markaas waxay soo xasuusanaysaa mistake yarta aa ka gashid baclada weligay wax fiican ba kuguma arag ilaa maalinkaa ku bartay ilaa hadda balaayo iyo dhibaata intaa nagula kor taaganta soo ma exactly for example hadda tusaale waxaa ku ah marka uu rasuulka alayhi salaam sayr waana xaqiiqa jirta wanaagii ma xasuusano ee nimanka noo falaan laakiin waxaan xasuusanaa weaknesskoodii intoodii xumayd xaleena maxaa saa u samaysay wax adduunka aniga farxad kuguma helin imisaan farxad ku siinayo ku leeyahay marka oo waxaan ku siinaya dhanka kacmiya waxba farxad kuma siin maalinkaas wuxuu bilaabayaa farxaddii uu kugu haystay inuu kaa jaro laakiin maalinka weakness uu yimaado waxaad tiraahdaa qaali maanta maxaasaan isaan weliga kuguma arag dhee intaad ihlad iimaada samayn waxaad ku encourage garaysaa ku dhiirigelisaa weliga khaladkaan kuguma arag adoo samaynay maxaa u samaysa maanta markaas wuxuu isleeyahay walaa khalad aada geli jirin baa maanta gasha laakiin markaa sheekada uga bilowna warheer weligay farxadaada ma arag oo maalinkaa ku bartay ilaa hadda dhibaatay problem baa kugula joogaa hadda iyo kow maalinkaas wuxuu bilaabaya farxaddii uu ku siin jiray awal daacaddeeba ka ahayde cancel inuu kaa saaro oo mid farxad uu siiya oo kaa raadsado soo marka please waxaan nimankeena ku encourage garayn karnaa ama aan ku xoojin karnaa anagoo u sheegna waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin mar walba
haddaad saa samaysid asagana mar walba wuxuu isku dayaa qalad kasta aad ka gashid ama xumaan kasta aad samaysid inuu daboolo wanaagaaga uu kugu soo celceliyo daacad iska ah mar walba taas way ku wanaagsan tahay waayo waxa weeyaan waxay u wanaagsan tahay gurigaaga haddaad qof daacad tahay Soomaalida daacad waxay u taqaanaa hadda kor waa idin sheega daacad waxa loo yaqaanaa gabdhaha masaakiinta ah oo iska aan kala jeclaan hadduu shan habeen yimaado iyo hadduu hal habeen yimaado iyo hadduu wax keen iyo hadduu wax keen baxlo leeyahay wallahi waa gabar daacad asaguna halka intuu istaagu leeyahay wallahi gabar daacad ah haysta daacad taas baaha daacad xaqaagana dhacso xaqiisana si xaqaagana dhacso kiisana u ogolo wasi markaas honesty baa taha xaqiyaamin يعني حقيرين وناكس أو كسمة هك حقيرين إلا حد أديكنا أسمع daacad marka ahow oo mar walba ka run sheegaysa waxa ninkeeda u sameynayso sidoo kale ninkaaga marka isku dhacdaan oo mugdi uu idin dhex yimaado intaad ordilad oo la tashaneed walaasha waa mid dad kuugu dhow sama saaxiibta hooyada hala tashanin asaga isa soo hor fariista xitaa haduu taagan yahay xaaladda sariirta xitaa haduu joogo la hadal waxa tirada khaladkaasan ka tirsanaya aniga khaladkaasan ka tirsanaya maxaa ka qaban kartaa maxaa inoo xal ah ma aan micnaheed inaad aadid khalad baan ka tirsanaya aniga adduun waxa weeyaan furitaan waxaan ahayn oo imaraya male Allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiri agteed waxa loogu jecel ka badan yahay waa guri islaam markii la dhiso waxa loogu nacayb ka badan yahay waa markii uu dumaayo guri dumay diiniyan markaa ka soo tagtid yu faa'iido u leeyahay waxa maanta halkaan dhoobay guri duman hooyo aaba kala tageen maxaa noo dambeeyay hooyo walba shan cunug iyo 7 cunug waxay haysatay inay la soo cararto banaanka wax ugu gado Soomaa guri dumay cid uu rooya ma lahan ilaasho gurigaaga mar walba gabaray oo ku taxadar gacanta midig inaad ku qabsatid gacanta bidixna noloshaada kala ku qabso ninkaaga khalad markuu ka galo inta ku degdegi leeyahay walaasha ama saaxiibta walaasha waxa laga yaabaa inaysan ogeyn wanaaga ninkaaga uu ku hayo walaasha waxa jirta waxyaabo badan ay og tahay iyo waxyaabo badan ay soo ogeyn adiga kaliya baa og waxa ninka ay adiga idinka dhaxeeyo oo wanaag ah walaasha waa qof kula dhalatay xumaana kula marabto iyo dib markay aragto ninkaaga oo yaani hadallada iyo isbedel kula imaanaya maxay kugula talinaysaa naaw basaasu keena wuxuu ku maleeyay inaad tahay waxa kuma malayn ayada wax ka dhigtay walaasha laakiin waxa kuma malayn qof caadi oo khalad uu galaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay adoomadeed waxa u jeclaa qofka intuu dambaaba ka soo laabta dambiga Soomaa khalad uu galaa adiga waa khaldami kartaa asagna waa khaldami karaa hadaad noqotaan laba qof oo mar walba khaladaadka iska galeen isla sheer gareeya oo mar walba maxaad iga haleysay iyo maxaad ii wanaajisay run ahaantii noloshiina guul waa ka gaaraysaa laakiin haddii mar walba noloshiina inta isku dhacdaan qof saddexaad uu idin dhex yimaado never you will never get a solution weligaa xal ma helaysid ugu dambeynna gurigaaga wuxuu noqonayaa guri furinkiisa laga tashaday waayo xumaantiisa iyo wanaagiisa waa laga tashaday sidoo kale waxaa jirta waxa aan dhahno waa ku eedanaa ragga Soomaaliyeed caafimaad ahaanna waan idin la wadaagay insha Allah waxaan dhahnaa ragga Soomaaliyeed garasho ma laha laakiin maxay leeyihiin garaacasho yaani ninka Soomaaliyeed waxyaabo badan kuma garanayo ilaa aad weydiisatid asagii Soomaa waxaan dhahnaa muxuu u garan waayay sabab xuniga u garan waayay mar walba ma wuxuu iga sugaayay in aniga wax weydiiyo ma wuxuu iga sugaayay in waxaas u baahanahay muxuu ii fahmi waayay waxa aan rabo Soomaa laga yaabaa gabar la qabaa tahay gurigaaga joogtaa arrin baa kugu soo korortay arrinta kugu soo korortay ninkaaga koow hadaad u sheegno aad in arrintaas aad timid horta miyuu ogaan karaa waa maya second hadaa u sheegtid xataa waxa laga yaabaa inuusan ujeedo badan ka yeelan oo arrinta marka u bandhigto aad tiraahdo niyo saasa jirta yaani caawitaan baa ka rabtay laakiin in direct wax u sheegto ma uu ku fahmin wuxuu ku maleeyaa un problemka inaad yaani la timid un aad u sheegaysid kaliya bartu kaaga si dhaqaaqay arrintaas ma dhacdaha wallahi I'm sorry anaga marka waxa raadinaynaa inuu ninka dhibkina la fahmo faadan familkayga dhib ku dhacay ninkayga waxaan leeyahay waa inuu reerkeeni waxa waa inuu dhaasay wax jiraan waa inuu aniga waxaan iyo asaga wada joogna waa in yaani raggi badankood garashadii waa ku yar mental ahaan markii loo fiirsho ragga waxa ku badan grey maataga aad ugu badan ragga
annagana waxaan ugu badan white matter wax la dhaho maskaxdeena raggu waxay mar walba focus gareeyaan hal shay ma focus gareeyaan laba shay laakiin dumarka ilaahay hooyo ugu talagalay training baa ilaahay baa marka hore ku soo train gareeyay guri baa joogtaa hooyaa lagugu talagalay caruurtii baad ilaalinaysaa iskuulkii baa u diraysaa asagii baa ka fikiraysaa naftaadii baa ka fikiraysaa gurigiini baa problem ka yimid waa xalinaysaa you see meeqa point aan isku haynaa ilaahay maskaxdeena marka hore laaj buu ka dhiga wuxuu ugu badiyay wax la dhaho white matterkii ayagii waxay leeyihin raggi hal focus wax labaad kuma dari karaan focuskiisa waa inuu xafiiska tago ku soo waco oo ku dhahayo gurigii maanta maxaa ka dhiman aad tiraahdo waxaas ka dhiman that is it he can't focus many things nimanka wax badan ma focus garan karaan soo marka u sheeg u tilmaan ma aan weakness ay leeyihiin waa psychologically ilaah baa ku abuuray hadduu ninkaaga wax badan garan waaye u sheeg xasuusi qaali waxaas baa garan weysay dheh wisa saxaya markaas hadduu nin yani saxan hadduu yahay sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeya mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayo timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo beelada gabadha ilaah urisaha qadar rabbiyo adaa baxsha sooma laakiin waxaa la idinka rabaa see ninkaaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya haddaad u duceyn mar kasta maqashii markuu baxaya adoo shaatiga u xiraya shaatiyaasha ma u xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ii kaa soo nabad celiyo ilaahay waxayaan tallaabo kastoo aa qaadaysid ilaahay ka dhiga tallaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada allah kuu fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada allah kuu fududeeyo you see because of waa maqashinaysa waxaa leedahay weliba asaga waa maqashinaysa waxaa leedahay ilaahu ninkayga ii xifdi rabbi raxmaan waa ogtahay saa u jeclahay kama maarmeen oo waa runteed miyaa ka maarantaa hadduu inta kaa tago kuu soo laaban waayo maxaa samaynaysaa soo ma wareeraysid waa oynaysaa soo maaha u sheeg ninkaaga yani tus waxaa tustaa inaad sugaysid inuu yimaado asoo nabad qaba waxaa tustaa inaad ku faraxsan tahay imaanshihiisa labaad uu soo laabto maqashii dhegtiisa markay maqashiiso uu bannaanka usii baxay wax kasta hadday ku dhacay wuxuu isleeyahay xaaskaagaa kuu soo duceysa waxba kuguma dhacayaan xataa maalinkaa shaqada ducada ka hilmaantid wuu kusoo xasuusin doonaa hadday gabdhaha xaasas kale tijaabiya maalinka yani mar walba haddaa u duceysa ninkaaga asoo ku maqlaaya shaqada asoo ku jira markay waxsi ka noqdaan oo guriga wuxuu leeyahay wallaahi maanta saas ay walaacay xasuus waxaa tiraahdaa oh sorry maanta ducadii aan kaa hilmaama waxaa kugu dhacay ducadii aan kaa hilmaama asagii markaas hadduu nin wax garad leeyahay wuuna garanaya ragga Soomaaliyeed waxbay gartaan alxamdulilah muxuu ku leeyahay sidoo kale qaali aniga intaan soo laabanayo ilaahay ii ka amaansado already waxa ku kala tagteen laba qof oo isku qalbi foow isuna duceeyay ducadiina marka laba qof oo isqabto kasta marka isu duceeyaan waxay ziyaadaysaa jacaylka iyo maxabada ka dhaxaysa ee hoos uma dhigto ducada mar walba waa powerful waxbay ziyaadaysaa waxba ma naaqiso Allah subhanahu wa ta'ala xadiis wuxuu ku leeyahay xadiisul qudsi ah wuxuu ku leeyahay inna rabbakum tabarakallahu wa ta'ala yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yuradduhuma safran Allah subhanahu wa ta'ala wuu xishooda markuu adoonkiisa gacmaha kor u taago oo wax ka bariyo wuxuu ilaahay ku xishoodaa in adoonkiisa soo gacmo maran u soo laabto that means ducada ninkaaga u duceysay waa duco maqbuul ah oo laga aqbalayo u ducee kaliya markaa salaada markaa tukato u ducee asoonku ogeyn u ducee waxaad arkaysaa gurigaaga oo barakoobay mana taqaan suu ku barakoobay wuxuu ku barakoobay ducada ninkaaga mar walba la garab taagantay ku tababar asaga in la isu duceeyo salaad kasta markuu ka baxo oo jamaacada ku tukado waxaad noqonaysaa markaa faamil bulaalay laakiin haddaan bal is xasuusanba oo waxa weeyaan kabta ordaysa iyo karinta ordaysa la soo hor yimaado that is not the life secondly mida kale aan la wadaagay waxay tahay naftaada taas nimanka u sameynaysa Soomaa haddaba naftaada adiga maxaa u samayso ma isu qurxisa ninkaaga sida uu jecel yahay ma isu qurxisa waliba gabdhaha Soomaaliyeed alxamdulillah maanta waxa weeyaan kulligan af Soomaaliya fahmayna waxay darnaa lahayd yani dadka ajnabi inta ugu jiraan inaan luuqad international dadka dhan wadaagay inaan idin kula gudbinaa waayo waxa la ogaan lahaa daciifka yarka baa la ogaan lahaa laakiin hadda waa isku sir qarsanayna Soomaalideena baanaha gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay
oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa maxaa kamid ah nadaafadii gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calaf doon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh حتى مالك أي يعني بحيس أي مال آديس وشاطب العريس تحلا هاي بري مال أصح كان رئيسي because she wanted to become beautiful إنها قروح بدنا تعرفها لكن مركي لجورسدو هل ده مالك هذا شو ورنا شبكتك مالك كو لو أور بالله أما ولع الصاقله that is the end of the life قبل الصوماليات إن استرترتو نينك هذا مرة بأي صغيرك تعرسات هذا يكوه واسكودا ماتا هبين كلا أراسا أقودن بس تضبط أي كبحث حال إذا كرر بقى مركا وحيابها dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninkaaga hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo soo qurxin ninkaaga nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha an-nadaafatu nisfu al-iimaan nadaafadu maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay fiiri nadaafadu marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadii maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martid baa la barbaras wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira sama wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda that means asaga priority ma ada siinba isku ma ada qurxin priority waxa siisay ummadii kala banaanka hadaba yaa way qofka alla nooshahay adiga ma soo ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay ma ugu talagalin ama shaqo iyo waqti bay kulmisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay maba ilaahay u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaagi uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degtid oo soo jiidatid maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxi ninka markuu yimaado maxaa sameeynaa for example dhaqamada Soomaalida waxa kamid ah dad baa ku iimaanayo mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi calaykum see uga duwanaanaya anaga waxaan sameeynaa family oo kale waa weeyeen Sooma war xataa joodar yar meel haduu ka leeyahay oo aan la seexan karin yani nolosh moogta waxa laga bilaabaa mar walba meesha u hooseysa ha ka bilaabin dabaqyo hadaan deganahay meesha u hooseysa hadii yani gurigaas dad isgeey aysan joogin oo meel la kala seexdo la waayo oo asagii adiga halka joodar idin yaala joodarigiisas iyo go'iisas iyo barkintiisas ha ka duwanaado joodariga dadka la isticmaalaan qolkiisa markaad priority ninkaaga siisid gogashiisa markaad siisid priority muhiimadda markaa gogashiisa ataagtid ninkaaga meel uu ku nasto hadhow markuu yimaado qalbigiisa dhan waa degaya daalka iyo dhibka uu soo marayna uu hilmaamaya laakiin markuu noo yimaado sariirtii oo gabar ka soo asxaabtayda markay inta ama reerkayga gabdhihii ila joogay maanta dhan ku kor fadhiyeen oo anigu aan maanta dhan marna geeska uga baxay oo cunugi maanta dhan halka ka orday oo basaasad caana xagga geeska ay ka taala sariirta what kind of life is that nolosha ninkaaga uu yani marka helaya maxay tahay ma hilmaamaya daalka iyo dhibka uu soo maray ma hilmaamayo meesha intay uga laba ziyaado wuxuu leeyahay wallahi meesha nolol iyo mataalo una iska tagaya laakiin maxaa laga rabaa inaad priority siisid muhiimadda nadaafada gurigaaga adigi gogashiisi awlaadi waa in guriga markuu ninka soo galo ku farxaa nolosha aad ku sugantihiin ma ahan inuu ka xanaaqo ama uu ka naxo markaas ninka uu soo xiisaya guriga imaashiisa tan labaad aan sameeyno waxay tahay waxaan sameeynaa mostly gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeedba dabeecadaha kale aan leenahay waxay tahay waan idin sheegay waxa isku guursanaa baan idin dhahay inaa awlaad kaliya iska helno laakiin iskuma guursano nolol inaa isasiirno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu idin leeyahay quraankiisa wa idha wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu fisaluhu 30 shahra Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu labadaas sano xawleeni kaamilayna noo yiri waxay danta ugu jirtaa baan familka oo dhan ee ma aan in cunuga kaliya danta ugu jirto familka ninka seebadan ugu jirta adiga seebadan ugu jirta cunuga waaba garanna naas baa wax weyn ilaahay baa ugu tala galayba adiga waxay danku ugu jirtaa inaa nasatid markuu ilaahay 2 sano ku yiri kala weynaysi awlaadaada 2 sano ma aan sanad kasta inaa dhashid waayo hadaa sanad kasta dhashid waxa dhamaanaya muuqaalkaaga waxa dhamaanaya jirkaaga waxa dhamaanaya maskaxdaada caafimaadkaaga kulli waa soo gabagaboobaysaa waxaad isticmaalaysaa awood uu isan ilaahay kuugu talagalay inaad degdeg u isticmaashid dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin haduu ilaahay awlaadana siiyo maxay uga hadlaysaa awlaad ilaahay waa baxsha alxamdulillah intu siiya Allah u barakeeyo laakiin maxaa meesha taala
awlaadan sanad kasta aad dhalaysid adiga dan ma kuu taha aaba dhashid maxmed sanad kasta hal sano gudahood markaan dhalo hal sano gudahood markaan dhalo I mean 5 sano gudahood markaan dhalo 5 cunug isku xigta oo aan neefsasho lahayn oo sanad kasta ninkaaga goorma time u helaysaa goormuusa time ku helaya ma isweydiiseen sanad uur baa leedahay sanadna walac baa tahay sanadna umul baa tahay dhowrka bilood u dhaxaysana period ba habeen kasta kugu dhaca soma marka dadka goormay nolol qaybsanayaan horta goorma isfahmayaan goorma nolosha romantic ah ninkan karabti goorma ka helaysaa time ba hadaadan siinba ragga qaar baa waxay jecel yihiin sanad kasta inay dhasho intuu ka fakaraya inuu reer badiyo oo uu ka fakaraya inuu biri magac yeesho la dhaho wiilkii reer hebel ah in hebel wuxuu dhalay 20 wiil waxa kaaga fiican haduu ilaahay ku siiyo 5 taas oo si fiican inta u korsatid moral fiican aad ku soo saartid birina mustaqbalkooda ay ku noqon dad u aaya waayo maanta maxaan soo saarnaa 20 caruur oo 20 kuwa jokoraa yihiin 20 kuwa nolol aan haysan waxaad maanta waaqaca taagan fiiriya waxaan joognaa dalkan Kenya wadankeena Soomaaliya aan ka soo tagnay waxa arkaysaa cunug yar oo 3 sano jiro ama 2 sano jiro la ordaya maxaan ku dhihi jiray taayir bir gar hadaad markaa soo dag uu ku dakhrayaa caruurta ka 5 jirka agtooda lama mari jirin laakiin halkan wali ma aragtay cunug wadada ordaya wali ma aragteen cunug kasta iskuul buu galaa gurigiisa homework dadkii waxay isu fahmeen oo nolosha isku fahmeen awlaad inay helaan laakiin awlaad ina iska dhashid maahan awlaad ma awoodaan nolol fiican ina siisid ninkii markuu guriga soo gal uu arka buuqan iyo maalin kasta baambar baa dhamaaday caanihi baa dhamaaday cunug hebel baa qufac ku soo booday bari xagee ka aadaya gabar kasta ayadoo 7 dhashay waxa arkaysa dhiig la'aan inta ku dhacdo ku haysa ninkii baa naagayga daba guursay uma maleereynsaa inuu noqonayo maxaa ka ku kalifay inuu saa ku noqdo yaa ku kalifay هذا كو كلفاي واي واحد قال يعني سميسي اولادنا نولل مسينس اسغنا تايم uma haysid wuu ardaya qolka kugu dhagan xataa meel fog ma aadayo guriga kugu dhagan gabadha yartoo joogto qolka kaligeed u xiran yahay buuq la'aanta ah baa lagaaga aadaya laakiin gabadhi buuqa badnayd oo 5 sano ah u dhalayso sanad kasta la dhaayna cunuga 2 bilood markuu gaaro ka jaray naaska maxaa maanta lagu rabaa marka buuqa ugu batay maxaas adiga isu rabay weeyda markaas waxaan bilaabaynaa hooyo kasta inay tiraado wallahi billahi ninka aan islaha meel yani biribu meel ka la soo baxay meelna igala ma soo bixino 8 aan oo dhalay halka ka dhaqaaqa abood alxamdulillah ilaahay awlaad waa baxsha laakiin ilaahay awlaad sida Soomaalida ay yani qaladka fikradda ay ka aamineen ma aha sida ilaahay uu talagalay ilaahay awlaad wuxuu ku dhahay kala weynaysi nolol si farxad si adii asagna nolol isku helay farxad waxaan idin kula talinayaa mar walba xawlayni kaamileen ina ka dhabaysaan dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin oo anigu naaskayga caano ma lahan 40 ku iiga go'aa say cunuga xawlayni kaamileen inuu jaa 2 sano kaamila adee kugu xiran tahay